Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Juba Institute of Professionals. Waa koorsadani Intermediate English course. Waana maadadii 4000 session English Words Book 1 lesson-ka 10-labaatanaad. Waxaa ka bilowdaa page-ka 63 semester 3. Waayahay kelimada 201 aan arkayna waa image. Image waa muuqaal. Image maxaa la muuqaalka weeye. sumcadana waa la dhahaa image sumcadana waa la dhahaa muuqaal waa la sawir. The image of something shayga muuqaalkiisa is a picture of it was sawirkiisa. The image of her eye sawirka indhaheeda was very clear aad buu cadaa oo wala arkay very clear aad buu cadaa. Marka waana noun eragan immediate waa degdeg immediate maxaa la si degdeg adjective. If something is immediate shayga haduu degdeg yahay it happens quickly said aksara ayuu dhacaa. An immediate response jawaab degdeg ah came from the pizza place waxay ka timid meesha loo yaqaano pizza place. Marka pizza nooc cuntadan fudud ee la kariyo ee burka iyo hilib la dhex galiyo ee pizza hadda laakiin waa meel magac from pizza place. erey kale marayna waxa primary waxaa la asaasi ama muhiim. If something is primary it's the most important thing waxa ugu muhiimsan. His primary thoughts waxyaabaha ugu muhiimsan uu ka fikiro are about money lacag buu ka fikiraa. His primary thoughts fikirkiisa ugu muhiimsan ama asaasiga are about money lacag buu ka fikiraa. erey kale waxa proud waxaa la qof mataqaana ku faraxsan waxa uu sameeyay ama horumarka uu gaaray. Proud waxaa la qof faraxsan ama ku faraxsan ayaa la sidoo kale proud qof isla weynna waa la dhahaa. Proud qof isla weynna oo kibir badanna waa la dhahaa. If someone feels proud qofka hadduu proud dareemo they are happy about waxay ku faraxsan yihiin what they have done waxa ay sameeyeen. I am proud about my performance waxaan ku faraxsanahay oo ku faanaa hawshayda. waxaa dhigana she is proud of the picture waxay aad ugu faantahay ku faraxsan tahay sawirka she drew of a house ee gurigeeda ka sawirtay. She drew waa draw bastigeeda waxaa drew na way dhahan accent mare Ingiriiska. She is proud of the picture waxay ku faraxsan tahay sawirka she drew of a house ee gurigeeda ay ka sawirtay. erey kale marayna waxa remain waa joogid ama ku nagaasho. Remain maxaa la joogid ama ku nagaasho ama ku baaqi ahaansho. To remain somewhere is to stay there waa in halkaa joogto. To remain somewhere inaad meel ku nagaato ama aad joogto to stay there waa in halkaa joogto. My sister had to remain home walaashay waxay ku qasbaneen inay guriga joogto since she was sick maadaama ay jirnayd. My sister had to remain have to oo bastigeeda wey. My sister had to remain walaashay waxay ku qasbaneen inay joogto home xaafadda since she was sick maadaama ay jirnayd. erey kale marayna waa rest waa nastino inaad nasato waana verb waa ficil. To rest is to stop being active waa inaad joojiso wixii shaqo haysay when the body gets back its strength inta jirkaagu uu nasanayo ama awoodiisu la soo noqonayo. waxaa dhihi karta I rested on the couch waxaan ku nastay couch kursiga weyn ee dheer meelaha couch kursi weyn baa la oo badanaa suufa. I rested on the couch kursiga ayaan ku nastay after work shaqada kadib. Rest marka waa nasasho waa verb. Separate tan adjective way hadda laakiin verb nasaana ku tahay. Separate kala saarid wey. Separate maxaa la wax markay kala tagaan ama la kala saaro wey. If two things are separate hadda laba shay kala duwan yihiin they are not together islama joogaan. Separate maxaa la wax kala tagay ama aan isku meel oolin ama kala duwan way. ficilkana separate way. ficilka naftiisa waa separate oo kala saarid baa la ama kala saarid. New York and Los Angeles iyo Los Angeles are in two separate parts of America. laba dhinac oo kala duwan oo Mareykanka ku kala yaalaan yani isku meel kuma yaalaan way. New York and Los Angeles New York iyo Los Angeles are in two separate parts of America. laba meel oo kala duwan oo Mareykanka ku yaalaan. erey kale marayna waxa site waa goob ama place meel way. Site waa goob ama place. A site is a place inaad dhahdo
in a site was one goblin. We found the perfect site. وحالا ماشي أقول في عن for a picnic. دلحيس كان picnic وحالها سفر يرو دلحيس picnic سفر قاونا ودلحيس وحالها picnic مالها. إيه كلام برينا حاين tail was saint لها. A tail is a part of animal's body. وقيب جلك كميدة وقيب كميدة جلك هدي الله إدما يوي. Tail is a part of animal's body sticking out from its near or back. Rear or back. Galashisa waxa ka soo taagan mar waa sayn. Our dog wags. Eegana wuxuu ruxruxa. Our dog wags. Eegana wuxuu ruxruxa its tail sayntiisa when it's happy markuu faraxsan yahay. Erey kale barayna waxaan trouble waa dhib. Trouble is a problem or difficult. Waa dhib ama caqabad. Trouble is a problem or a difficult. Difficult wax adag ama caqabad ah. I have trouble working with my boss. Waxaan dhib ku qabaa la shaqeynta qofka madaxda ah. I have trouble dhib ayaan ku qabaa working inaan la shaqeeyo with my boss ninka madaxda ah. Boss qofka madaxda ku ah baa nin qasam ah. aad baad ma sidii 10 ka tasoo leeyahay fadlan 10 dhageysta